الحمد لله والصلاة والسلام لله. بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق القرآن الكريم. walaal waxa weeyaan intaas waxay ahayd maarta ayad aan ku furfuranayay. waxaan barnaamijka caawa uu run ahaantiiba waxa weeye halkan aad nagala socotaan waxa weeyaan waa idaacadda dulmidiid qaybta baraha bulshada. laba saad nooga barateen waxa weeye waxaan soo gali jirnay maalin kasta oo sabtiya saacadu markay 4 tahay ama ilaa 5 ayaan soo gali jirnay. barnaamijkeenu insha Allah waynu bilaabi doonaa, laakiin waxaanu ku bilaabi doonaa maadaama dad islaam aanu nahay aayaadka quraanka insha Allah waxaana maartay aayaadka quraanka maartay soo jeedin doona insha Allah Sheekh Ali Naim qaari weyn oo maartay insha Allah qaarigaas noo soo gudbin doona insha Allah dhageysi wacan ka bacdina markaas barnaamijka bilaaban doona soona gala. صدق الله العظيم وصدق القرآن الكريم. شيخ مارتي وحو سوجيدي ومارتي إن شاء الله آيات مارتي وجاء حقا وسحق بادله. هدو رسولك عليه الصلاة والسلام مركي ومارتي مكة فرتي مكة وحلو عابد جري أصناب أدو فربضان ومركا حلي قال عابد جري كدي مكة مركو صوغري أيو مارتي أصنابتي وشاكو قبتي كدي مركاسو أصنابتي ساوردي سو مركاسي ku fiiqayo oo marka la burburinayo waana markii la burburiyo asnaabta markaas wuxuu yiri aayadaas ku soo degtay wajaa haqa wa sahaqa badila hadii uu xaq imaado baadilku uu hara runtii markaas insha Allah barnaamijkeenu waxa weeyaan waxaanu hadana guda gali doonaa insha Allah oo aanu bilaabi doonaa maartay soo sheeg barnaamijka laakiin si barnaamijka waxa maartay soo sheeg idaacada sidaad ugu barateen halku dhig oo ah maartay muusiga ay daaraan oo muusigaas oo mid maartay soo sheega ku salaysan maartay soo sheeg dulmidiid idaacadu aalaba qadarka muusiga markaan ka bacdi ayaanu barnaamijka insha Allah bilaabi doonaa insha Allah. goolkii dhalinaygayigiina nimi dulmidiidna guulaysay heestan waxaa loogu talagalay ciidamada habeen iyo dhanaar dhulkooda dhacsanaya inay ku dhiiradaan cadowga qaawan ee damacaya ranna taalida shacabka iyo geesiyaasha. heestu waa dulmidiid erayada waxay u furtay Faysal Faarax Suusle, laxanku waa Cabdiraxmaan Waqdi, muusiga dhalimaya waa Maxamed Jiito, codadku waa xidigihii dulmidiid Raxmaan Axmed iyo Cabdiraxmaan Waqdi, isku dabridku waa Alfanaan Jimmy, waa studio dulmidiid. halkaas intaasina waxay ahayd oo maartay heesta halku dhigayga doonayna la yiraahdo dulmidiid insha Allah iyadoo cilad farsamo ay xoogaa yar jirto waxaanu markaa insha Allah guda gali doonaa barnaamijkeena aanu guda galaynaa kulli barnaamijku waa faaqidaada siyaasadda halku dhiga barnaamijka waxa la dhaafo sabtida iyo faaqidaadii siyaasadda waxaana aalaba idin soo jeediyay anigoo ah Mukhtaar Ismaaciil Ibrahim Mukhtaar Qarni. runtii waxa weyn barnaamijku markaasi waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah maanta qaybo fara badan buu ka kooban yahay inkastoo dadku aad u yar yihiin laakiin insha Allah waxa weeyaan waan iska bilaaban doonaa insha Allah.
halkani waxa weeyaan waa idaacadda baraha bulshada ee dulmidiid markaa insha allah maaragtay waxaad nagala xidhiiri doontaan insha allah xoogaa waxaa jira cillad waxaan halkan ka codsanayaa in dadka isoo wacaya ee maaragtay iga soo wacaya maaragtay isoo sheeg facebooka amase messengerka ama qaybta whatsappka waxaan ka codsanayaa inayna maaragtay soo wicin xoogaa waxaan ku jiraa barnaamijka runaantii dadka qaarkood waxaad moodaaba in maaragtay iyagoo online ah oo ku arkaya ayay kusoo wacayaan markaasi xoogaa markaa raalli ahaada insha allah maaragtay barnaamijka waa layga dhex galay waxaan markaa bilaabanaynaa barnaamijka insha allah halkani waxa weeyaan waa idaacadda dulmidiid oo maaragtay aalaba soo gasha saacadahan oo kale soo gasha barnaamijkana wuxuu loogu magac daray oo layidhaahaa barnaamijkii faaqidaada siyaasadda ama barnaamijka sabtida iyo faaqidaada siyaasadda labadaba sidaad run ahaantii markaa barnaamijku waxaan dul taaban doonaa run ahaanba geyga soomaalidu uu degto oo dhan baan dul taaban doonaa waxa weeyaan qodob baanu dul taaban doonaa insha allah maanta waxa weeye waad soo geli kartaan qofku rayigiisuna ka dhiiban karaa insha allah hadduu la idhaaho markaas waxa weeyaan qodobka koowaad een dul istaagaynaa waxa weeyaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya khudbaddii shirkii un-ta uu ka jeediyey muxuu daarnaa sidee bayna ahayd maxaasid ka fahantahay laba waxa weeyaan qodobka labaad wuxuu daaran yahay isaguna madaxweynaha federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo oo daahfur iyo xafladii furitaanka safaaradda soomaaliya ee maraykanka ah furay sideed u aragtaa qodobka waxa weeyaan iyo socdaalka guud ahaanba uu maaragtay booqashada socdaalkiisa uu daaran yahay guud ahaanba gobolada amase magaalooyinka maraykanka oo dhan meel kastoo ay soomaalidu degto sideed u aragtaa waxaa kaloo iyaduna maaragtay aanan ka maqnayn oo jirta qodobo kaloo iyaguna maaragtay jira qodobkiisa maaragtay iisoo sheegeen saddexaad oo isaguna sheegaya maaragtay iisoo sheeg sideed u aragtaa maaragtay ishaldanka siyaasadeed ee ka jira soomaaliya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland sidee baad u aragtaa su-aalahaasoo dhan baa la isweydiinaya insha allah hadduu la idhaaho barnaamijku markaa wuxuu daaran yahay sidaas insha allah waana idiigu soo celcelin doonaa ciddii u baahan inay maaragtay barnaamijkan faaqidaada ay ka faaqido oo ay maaragtay taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa qof walba inuu maaragtay codkiisa uu cabiro fikirkiisa uu cabiro siyaasadeed kole qof walba waxba ka dhex guuxaya runtii waxa wanaagsan maaragtay waan kusoo dhaweyneynaa barnaamijka waanan idiigu celcelin doonaa insha allah hadduu la idhaaho barnaamijka mar walba waan ku celcelinayaa qodobada uu daaran yahay halkan aada joogtaana waxa weeye maaragtay waa aniga oo mukhtaar ismaaciil ibraahim idiin soo jeedinaya maaragtay barnaamijku wuxuu daarnaa runtuna waxa weye run ahaantiina waxa weeyaan in qodob baan u dul istaagi doonaa fikir ahaan maaragtay iisoo sheegay sida maaragtay wararkana soo gaarhaya iyo siday yihiin baan mar walba idiinla wadaagnaa kusoo dhawaada barnaamijka maaragtay iisoo sheegeen idaacadda dulmidiid qaybta maaragtay waxaad naga heli kartaan qaybta facebooka baraha bulshada ayaad naga helaysaan waxaad naga heli kartaan oo kale maaragtay youtube-ka oo maaragtay aan soo gelina ciddii ay dhaaftana youtube-ka ayuu maaragtay ka helayaa maaragtay waan soo gelinaynaa qaybta youtube-ka ayaad ka heli doontaan run ahaantii waxa weeyaan barnaamijku waxa weeyaan waa barnaamij xiisa leh run ahaantiina waxa weeyaan waxaan maaragtay la wadaagaynaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay dunida ka joogaan waxaanu leenahay soo dhawaada insha allah cidda u baahan waan soo qabanaya qofka ugu horeeya okay nabad iyo nolol waan soo qabanayaa nabad iyo nolol soo qabso malaynayaa nabad iyo nolol walaalkeena kusoo gala qaybta facebooka waxaan u malaynayaa xoogaa inuu khadku ka daciifsan yahay laakiinse balownu eegana waan sugaynaa inuu inta uu soo galayo السلام عليكم. calaykum assalaam walaal soo dhawow halkani waxa weeye idaacadii dulmidiid qaybteeda maaragtay baraha bulshada
runaantii waxa weeyaan waxaan loo maanta qodobada oo la socotana marinaya walaal maya hadda dhawaan soo gala walaal basma waan kuu sheegayaa magacaaga oo saddexan ku bilow magacayga waxaa laygu dhahaa farxiya markaya xageed ka soo hadlaysaa yurub maasha allah waan gartay waxa weeyaan qodobka koobaad wuxuu daaran yahay sidaad u aragtaa maaragtay maxaad si ka fahantay maaragtay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane farmaajo khudbaddii uu ka jeediyey un-ta uu ka jeediyey maxaad ka fahantay wallaahi khudbad aad u qiimo badan waayo oo na farxad gelisay haddaan nahay shacabka soomaaliyeed intii wanaagsan oo wanaagga jecel waa waxay ku farxeen waa waxa intaas aan sugaynay waa waxaana 30 sano aana arkin waa sharaf iyo karaamo u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed sharaf daradeenin inay soo gabagaboobaysaan u arkaa kooxaha yacni ku naaxay 30 sano inay dhiiggeena miirtaanna waxaan u arkaa yacni in lasoo afjari rabo marka qodobka labaad wado dhamaystir wado marka waxaan u arkaa Soomaaliya inay israacday ay midoobi rabto oo laga guuleystay wixii sanduuqyada nagu kala xirtay ee gobolada noogu magacaabay marka waan ka guuleysanaynaa insha Allah su'aal kale way weydiin kartaa insha Allah walaal waxa weyn qodobka labaad isaguna wuxuu daaran yahay madaxweyne farmaajo oo maartay soo sheegay Mareykanka safaaradii xafradii daahfurka ee safaaradda maartay furay ka bacdina ummadda Soomaaliyeed halkaas ugu yimaadeen kadibna maartay waxa qodobka saddexaad ban iyadana ku raacinaya oo ay iyadoo socdaal boqosho oo ku maray guud ahaan dalka Mareykanka oo uu tagayo gobol iyo magaalo kasta oo ay Soomaalidu degto sideed u aragtaa والله وشرف يهيبت أمد الصوماليات ضيعناه قحوتيجا هاي ترت أسوهيتي وأنا كفر أحسنها وأنا سود وين ياه مدح وين هنا شرفت بدن حفظ الله محمد عبد الله فرماجو مركو عندي لا إله حفظ أمد الصوماليات وعندي لها واجي وجدين بريء دولة هالشين كلا دنبين لا شرف لا عز لا عالم كذا ضد كأني وحا يكون الحرين وحبسية caruurteena waxay noqdeen gaangis waxaan noqonaa anaga dhan dad aan dal lahayn dal jiro laakiin aan dad lahayn anaga dad ma nihin dal waan leenahay laakiin dad ma nihin marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed inay hurdada ka kacdin dowladda la garab istaago waxaan arkayay dad u taageeraya yacni dowladda islaameed oo daba dhaq u ah marka waxaan dhihi lahaa waxaas ka waantooba iska daaya qabiilka iyo waxaad ku qoqoban tihiin waa Soomaaliya haydin deeqdo Soomaali baana khayraadkeen yaa faraha ka batay waxaan leenahay macdan wax walbaan leenahay dahab caalamku wuxuu haysanaa badad aragtay dhirka badan Afrika ugu dheeran haysanaa marka waxaan dhihi lahaa inaad wadankiina garab istaagtaan ee dad noqotaan taasaan kula dardaarmi lahaa shacabka Soomaaliyeed waliba inta dhalinyarada ah oo wanaaga jecel waa sax qodobka afraad ugu dambeeyay ayaan doonayaa iyadana ka weydiiyo barnaamijka ku jiray qodobka afraad wuxuu sheegayaa inay jirtaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maartay soo sheeg maamul goboleedka Jubbaland oo baryaan hirdan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo sideed u aragtaa wallahi maamul goboleedkan horta aniga waxaan dhihi lahaa waxa ku qaraabanaya dowladda shisheeye ma ahan maamul yacni asaga ma lay maqlaa ha si fiican lagu maqlaa imika lagu maqlaa waxaan dhihi qola ay soo waceysay waxaan dhihi lahaa marka maamulkan aniga raali ahaantayda waxaan u arkaa maamul dad islaameed ay ku qaraabanayaan oo ajnabi ah iyo inta uu daba dhaqdo Soomaalinimada sheeganaysa oo midabka nooga eeg afkan nagu matasha marka waxaan dhihi lahaa dadka waa dad yar oo fara ku tirisa kaligood maaha way badan yihiin in badan oo isbahaysata way qowleysata marka intaasna gobolkood inuu sii dhacayaan u arkaa Soomaali baa saan hore u weeray waad mahadsantahay walaashay maartay aad waqti kale uu soo qabanayna idaacadda insha Allah waxaanu siinaynaa walaalihiina kale aad baad mahadsantahay walaalka taasina waxay ahayd gabadh Soomaaliyeed oo Yurub degan oo doo maartay fikirkayga ka dhiibatay aad baad mahadsantahay walaal soo dhaweynaa assalaamu calaykum qofka labaad baan doonayaa inaan soo qabto ee isaguna maartay barnaamijka doonaya inuu ka dhiibto codkiisa
halkani waxa weeyaan waa galbeed t v galbeed t v halkani waxa weeyaan idaacadda dulmidiid qaybta maaragtay galbeed t v waxaan runaantii maaragtay isoo sheegay barnaamijkan wuxuu daaran yahay waa faaqidaada siyaasadda sabtida iyo faaqidaada siyaasadda la yidhaahaa run ahaan barnaamijku markaasi qodob qodob baan u dul istaagi doonaa si dadku ay ula socdaan intii imika soo gashay cusbayd maaragtay barnaamijkan hore ula socon qodobka koowaad wuxuu maaragtay tilmaamayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya federaalka soomaaliya oo khudbad ka jeediyey un-ta sideed u aragtaa khudbaddii uu ka jeediyey united nationka qodobka labaad madaxweynaha federaalka soomaaliya oo daahfuray xafladii ka qayb galay xafladii daahfurka safaaradda soomaaliya ee maraykanka maaragtay oo uu furay isagu gacantiisa uu ku furay sideed u aragtaa iyo socdaalkii booqashada ahayd ee u guda jiro magaalooyin badan iyo gobollo badanba uu ku tegayo meel kastoo ay soomaalidu joogto sideed u aragtaa waxa weeyaan qodobka afraadna wuxuu isaguna sheegayaa sideed u aragtaa maaragtay iisoo sheeg hirdanka siyaasadeed ee ka jirta jubbaland maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya la soco markaa dhegaystay maaragtay iisoo sheeg waan qodob baanu dul istaagaynaa waxbaan idiga weydiinaynaa fikirkaagu waa xor iyo xalaal baad u tahay xuquuqul qowlku waxa weeye dastuurka soomaaliya dhigaya oo maaragtay guud ahaan maaragtay qabyo qoraalka maaragtay dastuurka qabyo qoraalka ee soomaaliya ayaa dhigaya waxaa dhigaya oo kale qofku xor buu u yahay inuu maaragtay isoo sheegay fikirkiisa uu maaragtay cabiro waana idin soo dhaweynayaa kuna soo dhawaada waan idin soo qabanaya insha allah qofka labaad bay maaragtay walaalkay uu ka go-ay faadumo maxamed axmed baan soo qabanaya imikana faadumo maxamed axmed soo qabso walaal maaragtay insha allah okay waan ka xumahay qofkaasi declaring maaragtay khadka ayaanan u fiicnayn qofka kale aan soo qabanaya insha allah haddoo la yidhaaho ayaan soo qabanayaa insha allah maaragtay qofku inuu ku baraarugsanaado weeyaan barnaamijka maaragtay qodobada ayaan mar walba idin dul marayo insha allah intiina la socotay intaan la soconnay insha allah waa loo sheegayaa insha allah maaragtay soo dhawaada halkani waxa weeye waa waxa weeyaan idaacadda dulmadiid ee qaybta baraha bulshada waxa weeyaan qodobo badan baa maaragtay halkan inoo yaala insha allah dhammaanbiina waxa weeyaan xor baad u tihiin soo sheeg inaad maaragtay fikirkaaga iyo ra'yigaaga insha allah inaan maaragtay gudbino halkan waxa weeye soo kusoo dhawaada dhammaantiinba ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waan idin soo dhaweynaynaa kusoo dhawaada barnaamijka inaga ilaawina inaad noo sheer garaysaan commandina ka bixiya insha allah hadduu la yidhaha qofkii maaragtay soo dhawaada waan ka xumahay waxaan ku celinayaa insha allah hadduu la yidhaaho faadum baan ku celinayaa soo gala waxa weeyaan qof kastoo gacanta soo taagta waan qabanayaa internetku haysta iyo khadkiisa uu maaragtay iska hubiyaan maaragtay idaga codsanayaa soo qabo qofka kale ha soo qabsado insha allah hadda la dhaho okay faadumo waan ku soo qabanayaa laakiin maaragtay khadkaaga iska hubi halkani waa galbeed t v
halkani waa idaacadda dulmidiid gaar ahaan qaybta galbeed t v ee baraha bulshada. waxa maaragtay isoo sheegaan maanta uu daaran yahay barnaamijkeena maaragtay oo loogu magac daray barnaamijka faaqidaada siyaasadda. labadaba sidii aad u qaadataan sidaad u qaadan kartaanba u qaata, laakiin faaqidaada siyaasadda ayaa la yidhahaa barnaamijka. waxa weye hadday sabti tahay hadday axad tahayba barnaamijkan waan soo galnaa. maalmaha waxaan soo galnaa maaragtay weekendka ayaan soo galnaa. barnaamijkan waxa weeye barnaamij taxana ah oo socon doona ilaa maaragtay insha allah intay naftu igu jirto aan wadayo barnaamijkan. waxa weye marka barnaamijku wuxuu daaran yahay run ahaantii oo dul istaagi doona qodobada barnaamijku daaran yahay ayaan idii dul istaagayaa. qodobka koowaad ee barnaamijka uu maanta daaran yahay waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya khudbadii shirkii un-ta uu ka jeediyey sideebaad u aragtaa dhegeysta. qodobka labaad madaxweynaha farmaajo oo daah furay xafladii furitaanka safaaradda soomaaliya ee dalka mareykanka iyo socdaal booqasho oo guud ahaanba uu ku gaadaa bixinayo dalka mareykanka meel kasta oo ay soomaalidu joogto ama ay degan tahay soomaalidu, isagoo markaasi weli ilaa imika uu socdaalka u socdo maaragtay iisoo sheeg booqashada dalka mareykanka ee uu ku tegay, isagoo uu markaa la kulmi doono dhammaan dadka ku nool mareykanka ee soomaaliyeed meel kasta ay degan yihiin ugu tegi doonaa. marka waxa weeye sideed u aragtaa markaasi booqashadaasi dhegeystay. qodobkiisa afaraad waxa uu isaguna dhigayaa sideed u aragtaa hirdanka siyaasadeed ee jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya. kusoo dhawaada halkani waxa weye idaacadda dulmidiid ee baraha bulshada, qaybteeda baraha bulshada. marka waxa weeyaan iisoo sheeg kusoo dhawaada walaalayaal insha allah barnaamijkan inoo sheergareeya barnaamijka inoo sheergareeya, soo qabsada qof kasta oo u baahan inuu soo qabtana waan soo qabanayaa. soo qabsada insha allah. inkastoo dadku aada u yaryihiin barnaamijka waana ku jiri doonaa ilaa muddo 2 saacadood ama 1 saac iyo badh waanu ku jiri doonaa insha allah barnaamijkan. qof kastana fikirkiisa dhiibto. mar walbana waxaan kusoo celcelin doonaa barnaamijka qodobada uu daaran yahay baan kusoo celcelin doonaa. waxaan kaloon iyaduna dul mari doonaa iyadana ka maqnayn qodobo kale oo iyaduna aan maaragtay tilmaamaya geyga soomaalida una ah oo guur ahaan waqooyi galbeed iyaduna tilmaamayo ayaan dul istaagi doonaa. laakiinse qeybta hore ee maaragtay waxaanu kaga hadli doonaa maaragtay isoo sheegana run ahaantii waxaanu kaga hadlaynaa socdaalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo un-ta maaragtay hadaladii uu ka jeediyey shirkii united nationka ee madaxweynayaasha dunidu iskugu timaado ama adduunyada. run ahaantii markaasi waxa weeye shirkaasi sideed u aragtaa markaa isagoo markaasi qeexay run ahaantii oo ka hadlay qodobo badan maaragtay uu diiradda saarayay, isagoo markaa ka hadlayay iisoo sheeg soomaaliya halkay marayso. uu ka hadlay xaaladda soomaaliya iyo maaragtay iisoo sheeg la dagaalanka ay ku hayso ka dhexeeya al-shabaab iyo maaragtay iisoo sheeg argagixisadu uu kula jiro iyo heerarka imika dowladda soomaaliya ay marayso iyo waxyaalaha ay qabatay iyo maaragtay higsiga waxay kusii socotaba uu ka hadlay. waxyaalo badan buu markaa diiradda saara oo dul taabtay. waxaa kaloo uu dul taabtay in faragelin maaragtay soomaaliya lagu hayo dalalka qaarkood ee jaarka ay ku hayaan. runaantii isagoo dul taabtay markaasi in kenya ay maaragtay dacwad ay jirto badda maaragtay markaasi soomaaliya ee maaragtay laysku haysto, taasoo markaa isaguna saare si qaldan ay markaa iyaguna waxay u wadaan buu yidhi. iyaguna ay ku kalsooneyn markaasi dacwadda ka dhantaa ee dowladdu ay hordhigtay kenya iyo dowladda soomaaliyaba ay hordhigeen, aynan isku kalsooneyn dowladda kenya iyadoo doonaysa mar walba inay dib u dhigta maaragtay kayskaasi. marka waxaan u rajeyneynaa prosecutorka kayska gacanta ku hayaba dhowaan inay go-aan kasoo saaraan maxkamadda marada ACJ inay kasoo saaraan sida uu hadalka u dhigay. runtii waxa weeyaan iisoo sheeg markaa qodobo badan buu halkaa kaga hadlay. marka sideed u aragtaa dhegeyste, sideed u aragtaa fikirka madaxweynaha iyo diiraduu saaray ee maaragtay khudbadii uu ka jeeriyey un-ta waa qodobka koobaad weeyaan. qodobka labaad ah isaguna oo uu maaragtay
dahfur uu ku sameeyey safaarad cusub oo uu iibiyey dhul markaasi oo dhismahaasoo kadibna dowladdu iibisay qaaraan ay yihiin dadka maraykanka maaragtay degan ay iska ururiyeen. Uu sheegay maaragtay gurigii hore ee lagu shaqayn jiray ama alley deganaa ee loogu talagalay inuu dego safiirku lagu shaqayn jiray, laakiin maanta ay dowladdu iibisay in dhulkaasi oo maaragtay gurigaa dhan ay iibiyaan. kadibna maaragtay soo sheegay noqoto safaaradda xafiiskii ay ku shaqayn lahaa qunsuliyadda ama ambaasadoorku ku shaqayn lahaa ummadda Soomaaliyeedna loogu shaqayn lahaa sida uu hadalka u sheegay, iyadoo halkaasi ka hadleen wasiiro kala duwan oo dowladda federaalka Soomaaliya ka soo jeeda. Wasiirka maaliyadda Bayle Mr. Bayle ayaa isaguna ka hadlay, waxa ka hadlay wasiirka maaragtay arrimaha dibadda ayaa isaguna ka hadlay oo qodob taasoo markaa ididila aada u fiican ay tilmaameen in iyada naftarkeega ay iman doonaan socdaalkooguna ku eekaan doonin in maaragtay safaaradda halkaa laga dhisay Mareykanka oo kaliya ay ahaanayso ee la dhisi doono insha Allah safaarad kalena la iibsan doono ama dhul la dhisi doono ama la iibsan doono Ingiriiskana ay ku soo socdaan oo iman doonaan cariga maaragtay Great Britain ee Ingiriiska insha Allah, iyadoo markaa sheegay Scandinavian-kana inay iman doonaan sida Sweden oo kale ay u soo socdaan insha Allah. guud ahaanba ay sheegeen inay ka dhisi doonaan safaaradaha meelaha inay ka furnayn oo dhan safaarada laga furi doono uu sheegay maaragtay si maaragtay ambaasadoradu oo maaragtay iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay dardar gelin fara badan ay hayso, iyadoo markaa wasiirku uu sheegay in maaragtay ay jirto agent maaragtay diiradda uu saarayo qaybta ugu koobaad in la sameeyo relationshipka macnaha wadanada ay la leeyihiin saaxiibka ay la leeyihiin in ay maaragtay ka samaystaan qunsuliyado ay iyagu leedahay iskood u leeyihiin dowladda Soomaaliya leedahay. iyadoo markaa wasiirka maaliyadda isagu uu sheegay uu yiri budget kasta oo maaragtay meel kasta oo la dhisayo dowladdu ay u diyaarinayso budgetkaasi lagu iibsan lahaa dhul lagu dhiso hadina la siiyo buu yiri hadii maaragtay soo sheegaan uu iibsanaynaba dhul guri dhisan labadaba oo maaragtay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ayaanu mar walba budgetka ku jira buu yiri soo sheegay. waxaa markaa qodobka kale aan dul istaagaya markaa uu daaran yahay iyadoo maaragtay madaxweynuhu uu hadlay uu yiri guud ahaanba waxaan mari doonaa cariga Mareykanka meel kastoo Soomaalidu degan tahay ayaan u tagi doonaa haday ay tahay tuulo iyo haday ay tahay gobol iyo haday ay tahay magaalaba guud ahaan waanu u tagi doonaa meel kastoo Soomaalidu joogto ayaan u tagayaa ayuu sheegay. sideen markaa u aragtaa booqashadaasi uu ku gaada bixinayo uu dalka Mareykanka ku socdo madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo seed u aragtaa? ku soo dhawow barnaamijkan kusoo dhawaada insha Allah maaragtay fikirkeena oo xalaala dhiibta insha Allah qof kastana waan soo qabanayaa waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxa weeyaan halkani waa idaacaddii dulmidiid baraha bulshada. codkayga ma la maqlaa si fiican? codkayga ma loo maqlaa? barnaamijka noo sheer garay codkayga ma maqlaysaan? codkayga ma la maqlaa? codkayga ma maqashaan? haa ii soo qora haddaad codka maqashaan, haa ii soo qora waanu maqalnaa dhaha si maaragtay aan u ogaado maaragtay maqalkeenu suu yahay inaad xidhiidhkeena inuu maaragtay fiican yaho maaragtay ii soo sheegay in codkayga la maqlo. haa ha la soo qoro ciddii maqlaysa. dadku inta badan waxay u badan yihiin daawadayaal bay u badan yihiin, dad daawanaya ayay u badan yihiin, laakiin barnaamijka kasoo qaybgala fikirkiina dhiibta yar iyo weyn haween iyo caruur dhammaanba waxaan leenahay isaga oday iyo maaragtay aqoon-yahan dhammaanba fikirkaaga xor baad u tahay inaad kasoo hadashaa. runaantii baraha bulshada ayaanu kasoo hadlaynaa waxa weeye waa mid u gaara waa idaacadda dulmidiid baraha bulshada weeyaan. ciddii uu dhaafana maaragtay si toosa insha Allah waxaan uga soo gelaynaa daqiiqadaha imika soo socdo waxaan qaybta page-kayga ayaan kusoo geli doonaa oo maaragtay soo sheegay ayaan geli doonaa insha Allah. page-kaygana waad soo gelaysaan Galbeed TV ayaa ku qoran marka insha Allah markaad ku qorto Facebook Galbeed TV qaybta Facebook aan ku leenahay Galbeed TV weeyaan. waxa kale oo aad naga soo qayb gali maaragtay naga helaysaan wararka hadday dhaafaan aad ka helaysaan qaybta YouTube-ka insha Allah haddii la yiraahdo maaragtay aad ka helaysaan markaasi kusoo dhawaada aan ka xumahay
walaalkay maaragtay iisoo sheegahaa waa maaragtay soo qabsada barnaamijka soo qabsada insha allah. inoo sheer gareeya barnaamijka, inoo sheer gareeya. soo dhawaada. halkani waa idaacaddii dulmidiid. waxaan idiin sheegayaa inaan u wareegi doona insha allah. oon maaragtay waxa weye connecti baan kusoo sameyn doonaa insha allah. waxaan si toosa ugu wareegi doonaa qeybta bageka insha allah. kusoo dhawaada, dabadeedna qeybta bageka la socda ciddii ay dhaaftay insha allah. intaana waxa weeyaan insha allah maaragtay hordhici weeyaan barnaamijka. kusoo dhawaada insha